بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawow Jubba Institute of Professionals YouTube channel. waxaa halkan ka bilaabaynaa koorsada 4000 essential English words practice oo ah 40,000 eray ee Ingiriiska loo adeegsado, taasoo ku bixin doona tusaalayaal iyo sheekooyin story si fudud ugu bari doono. waxaa idin bixinayna Cabdisaaq Maxamed Cabdi ah for speaking practice. haddii rabto inaad luqadda lagula practice gareeyo oo lagula hadlo Ingiriiska ama ku hadalka, fadlan la soo xiriir nambarkaas. buuggan waxaa qoray Paul Nation inuu dhahayo, waana runtii buug aad iyo aad u qiimo badan sababtoo ah 40,000 eray ee Ingiriiska lagu hadlo ayuu soo koobay. wuxuuna geliyay eray kasta jumla uu macneeyay English to English buu ku macneeyay, kadibna wuxuu geliyay example. haddaba aan aragna erayga koowaad. erayga koowaad waa afraid. erayga koowaad waa afraid. afraid waa cabsi. afraid waa cabsi, cabsasho. cabsasho wey afraid. eraygu marka waa adjective. sad la socotaan erayadan qayb waa verbs, qayb waa nouns, qayb waa adverbs, qayb waa adjectives. yacni luqaddu waxay leedahay waxaa loo yaqaan 8 parts of speech bay kala gelayaan. waana muhiim eray kasta markaad barato inaad taqaana qaybaha kalena see loo gediyaa. tusaale, afraid waa cabsasho ama cabsi. afraid waa cabsasho ama cabsi. tusaale waxaan ihi when someone is afraid, qofka markuu cabsanayo, they feel waxay dareemayaan fear, cabsi. marka fiiri, fear waa cabsidi, afraidna waa cabsasho, inaad cabsato. I'm afraid waan cabsanayaa oo kale, qof wixii aad ka cabsanaysaa raacinaysaa. when someone is afraid, qofku markuu cabsado ama ruux markuu cabsado, they feel fear, cabsi bay dareemayaan. hadda tusaalaha fiiri, the woman was afraid of, haweeneydii waxay ka cabsatay what she saw, waxay aragtay. waatan indhahay kala haysaa, malaha wax ay ka cabsatay aragtay. the woman was afraid of, haweeneydii waxay ka cabsatay what she saw, waxay aragtay. so waa c bastigeedi. c bastigeedi waay. erayga labaad ee maanta baranayna waa agree. agree waa verb, waa ficil. horta waa ku waafaqid. agree waa ku waafaqid, ku raacid ama heshiin. wax marka ku heshiisa maxaa la agree. tusaale fiiri, to agree is to say yes. to agree inaad wax ogolaato ama aad ku raacdo ama aqbasho ama ku waafaqdo, yes way. yes agree waa ogolaansho, waxa markaad ogolaato ama ku waafaqdo ama ku raacdo, yes way. or to think the same way, ama inaad isku qaab u fikirtaan. to think the same way, inaad isku qaab u fikirtaan. I agree with you, waan kugu raacsan. markaas macnaheeda waxa way isku siba waxu aragnaa wey. haddaba ereyga macnihiisu waa ereyga agree waa verb, waa ficil. to agree is to say yes. waxa markaad ogolaato ama aada aqbasho ama aad qof ku waafaqdo ayaa waxaa la agree. ereygaas waa agree. marka to think the same way, marka agree waa verb. agree waa verb, laakiin waxaa laga samayn karaa noun oo ah agreement, heshiis. agreement, heshiis. nounkaas ayaa laga samayn karaa. ereyga saddexaad ee maanta baranayno waa angry. angry xanaaqsan. waa adjective, sifo weeye. angry xanaaqsan. waxaa jirta anger oo xanaaqa. anger oo xanaaqa oo macnaheeda anger markaas waxay noqonaysaa halkana ii gelaysaa r waydana kuma jirto. anger baa la markaas. laakiin hadda waxa way angry, xanaaqsan. when someone is angry, qofku markuu xanaaqsan yahay, they may want, waxaa laga yaabaa inay rabaan to speak, inay u hadlaan loudly, cod sare inay ku hadlaan. loudly, cod sare inay ku hadlaan. or fight, ama ay diriraan, dagaal galaan. ereyga saddexaad marka waa angry. angry waa xanaaq, xanaaqsan wey. angry waxa way xanaaqsan. anger ayaa xanaaqa.
when someone is angry ruux markuu xanaaqsan yahay they may want waxaa laga yaabaa inay rabaan to speak loudly inay si sare u hadlaan or fight ama ay dagaalamaan tusaalihii waa kana marka she didn't do her homework she didn't do ma ayna samaynin her homework shaqadeeda guri homework waxaa lahaa shaqada xaafadda looga soo shaqay so her father sidaas daraaddeed aabaheed is angry wuu xanaaqsan yahay is angry wuu xanaaqsan yahay erayga afraad aan baranayna waxa weeyaan arrive arrive waa imaansho ama soo gaadhid markaad meeshaad u socotay aad tagto waxaa lahaa arrive imaansho ama soo gaadhid tusaale to arrive is to get to waa inaad gaadho place meel or reach some place inaad meel gaadho marka meesha u socoto ka gaadho eraygan kale hadda reach waa arkaysa waa gaadhid arrive marka waa imaansho tusaalaha fiir marka the bus always arrives the busku always arrives wuxuu mar kasta yimaadaa wuxuu mar kasta dhacay at the corner of my street at the corner jiirada ama meesha looga leexdo jiirada la corner of my street wadadayda at 4 afarta ayuu yimaadaa erey kale barayna waxa weeyaan attack waa verb asna waa ficil attack waa weerarid attack maxaa weeyaan weerarid waay marka wax qof aa weerarto attack ayaa la dhahaa waa verb nounkeedana waa isla attack to attack inaad weerarto is to try waa inaad isku daydo yiri to fight inaad la dirirto or to hurt aad dhibaatayso wax yeelayso hurt markaad dhib u geysato weliba physically ama haddii kale mentally wax yartaan noqoto marka attack waa weerarid attack wuxuu jeedaa verb way iyada to attack is to try to attack inaad weerarto is to try waa inaad isku daydo to fight inaad la dirirto or hurt aad wax yeelayso waa kana tusaale marka the man with the sword ninkii seefta watay attacked wuxuu weeraray the other man ninka kale first isaga hor weeraray the man with the sword ninka seefta watay sword ninka seefta watay sword waa seefta marka attacked wuxuu weeraray the other man first ninka kale isaga hor weeraray erey kale waxa weeyaan baranayna ereyga shanaad barayna waxa weeyaan bottom marka bottom way qorto laakiin badanaa bottom ay dhahaan bottom the bottom is the lowest part waa qaybta ugu hooseyso marka ereyga bottom hadaatadaysa khafiyaan waa noun marka bottom waxaa dhahdaa waa noun the bottom is the lowest part waa qaybta ugu hooseyso marka sana wajiga the bottom of my shoe kabtayda qaybteeda hoose has a hole duleel ayaa ku yaala it duleel ayaa ku yaala marka bottom waa salka way meesha u hooseyso the bottom is the lowest part waa qaybta hoose the bottom of my shoe has a hole in it god ayaa ku yaala marka meesha ugu hooseyso ayaa la dhahaa saas marka erey kale marayna waxa weeyaan clever waa adjective waa sifo clever waxaa la waa qof caqli badan clever caqli badan ama xirfad badan ama xariif waxaa la clever when someone is clever ruuxa markuu yahay qof caqli badan they can solve waxay xallin karaan a hard puzzle xujo adag firi hard adag weye puzzle waa xujo or problem ama problem ay xallin karaan the clever boy wiilkii caqliga badnaa thought of wuxuu ka fikiray a good idea fikrad fiican a good idea fikrad fiican idea waa fikrad goodna fiican marka clever waxa weeye qof caqli badan oo maskax badan oo faahim ah cruel ereygan mar waxaa cruel ereygan asna waa adjective cruel waa adjective waa sifo waa macnaheedu waxay noqonaysaa cruel
aan naxariis lahayn. Cruel aan naxariis lahayn. Cruel aan naxariis lahayn. When someone is cruel, qofka markuu yahay naxariis laawe, they do bad things. Waxay sameynayaan waxyaaba xun to hurt others. Si ay u dhibaateeyaan dadka kale. Waa ka dafeed. The cruel man yelled at his sister. The cruel man. Cruel man ninkii naxariis laawaha yelled wuxuu ku qayliyey at his sister walaashi buu qayliyey. Erey kale aan barayno waxaa weeyaan finally ugu dambeyn. Finally ugu dambeyntii wey. If something happens finally, shaygu hadduu dhacay marka ugu dambeysay, ugu dambeyn hadduu dhaco, it happens wuxuu dhacayaa after a long time, waqti dheer kadib, or at the end ama meesha ugu dambeysay marka. Marka ereyga finally waxaa weeyaan yacni ugu dambeyntii ama dhammaadkii waxaasaa dhacay markaad dheerto. Salaam waa kana. He finally crossed. Ugu dambeyntii wuxuu ka gudbay the finish line. Leenkii lagu dhameynayay mataqaana orodada iyo meesha ay ku dhamaadaan waxaa la finish line. After 5 hours of running. Markuu 5 saacadood ordayo. After 5 hours of running. 5 saacadood orada kadib. After 5 hours of running. 5 saacadood orada kadib. ereyga u dambeeya cashirkeena maanta waxa weeyaan hide waa qarin ama isqarin. Hide, to hide is to try. waa inaad isku daydaa not to let others, inaad uga ogolaanin kuwa kale, dadka kale see you inay ku arkaan ama see something wax inay arkaan wax ma kala qariso. The other children, carruurta kale, will hide oo isqarin doonaan while you count to 100 markaad ilaa 100 tiriso. marka ereyga hide waa qarin, inaad wax qariso waaye. hide waa qarin, inaad wax qariso weeye marka. okay, hal mar aan kuusoo kormara ereyada. ereyga koowaad waxa weeyaan afraid waa cabsasho. ereyga kale waxa weeyaan labaad agree, ku waafaqid ama ku raacid ama ogolaansho. angry oo xanaaq ah, xanaaqsan. arrive oo imaansho ah. attack oo weerar ah. bottom oo salka ah, oo meesha u hooseyso. clever oo ah qof caqli badan oo maskax badan. cruel oo ah qof naxariis laawo ah. cruel naxariis laawe. finally oo laga wado ugu dambeynta iyadoo adverb. hide oo ah isqarin. aad iyo aad u mahadsantihiin. cashiradan waa taxanay noqon doonaan. waa buugga koowaad, unitka koowaad ayaan cashirkiisa koowaad ayaan maanta qaadanay. aad baad u mahadsantihiin. haddii aad rabto cashiradan oo practice lagu sameynayo oo dheeri ah, numberkayga ayaa igala soo xiriiri kartaa. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. fadlan hay